بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan joognaa xaafadda Islii waxa maanta aan kula kulannay maamo Soomaaliyeed gurigeeda oo ku nool magaalada Islii maamadaas oo ku dhiban wadankan Kenya kale waxaan wareysan doonaa macnaha dhibaatada haysata waxaan ku diin lahaa magacaaga Maryan Aadan Yuusuf ma noo sheegi kartaa macnaha dhibaatada ama problemka ku haysto cunugaana iga xanuunsan 2 sano iyo xoogaa ayuu jiraa mana istaagayo mana fariisanayo cunugan macnaha maxaa ka wada mana istaagayo mana fariisanayo isagoo 4 bilood ah cilad adi maskaxda xaggeeda kaga soo gaartay marka maskaxda cilad kaga jirta ay dhaheen waxa uu daawo u leeyahay ma lahan asaas ay dhaheen macnaha waxa waaye cunuga isheeg ma dhaqaaqayo ma soconayo wajifa kale macnaha si handicap ahaan saasmiya uu iska yaalaa ilaa aan rogo ilaa aniga oo maxay hayto dhinac markuu dhinac kala daal dhinac kale u gudinaya wax aan istaagay fadhiyo midna lagama haysto aniga unba isuga dhinac marka yaani uu seexiyo uu daalo iska cabaadaya dhinac kale u gudinaya dhinacaas kale marka uu gudiyo uu hadana ii sheeg iska seexanaya markay baayadu qabato ilaa aniga aan dareemo ogiye ma dareema isagana baayasi in kale 3 cunugan haystaa oo ayaga la wiil iyo gabar iyo wiilkan 3 cunug waaye 3da cunugana hooyo aabba ah oo u istaaga oo ii sheeg maanta haday dhakhtar rabaan hadii ay ii sheegay wax daawo iga rabaan aniga meelahaygaas uga soo barbariya dadkaas aabi ilmaha dhalaa waa kala tagnay marka maxaa ummadda macnaha mujtamaca aad ka codsan lahayd si ay caawiyaan bayna iyo caawiyaan Soomaali meel kasta ay joogto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa xaafad kamid ah wadankan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan la kulannay macnaha gabadhan ka xanuunsan yahay wiilkan yariiska gabadha magaceeda waxay noo sheegtay Maryan wiilkeena waxa la dhahaa Cabdullaahi waa yar xanuunsan aad u xanuunsan waxay kula haysataa labada caruur oo yar gabadhan wiilkan marka qofkii wax uu awoodo oo macnaha ii sheeg oo bini'aadnimo ugu soo diraayo asagoo meel kale isku taxallujin waxbana sameeynin si toos ah taleefankeedan ku qoran shaashada oo la soo xiriira waxa uu heshiina ayada u soo gudbiye sidii macnaha cunugeeda ugu raadsan lahayd caafimaad ama dhakhtar sidii noo sheegtay xataa cunug wuxuu u baahan yahay xataa xubnihiisa qaar ayaa isku laaban oo ma fidin karo ii sheeg wuxuu u baahan yahay fiisoterabiyo sababtoo ah sariirtuu saaran yahay maanta oo dhan si jirkiisa macnaha fiisoterabiyo loogu sameeyo awoodna uma laha meeshaan macnaha ii sheeg xataa xaafadii deganta waa xaafad macnaha ka soo baxsan magaalada Islii xataa sida loo soo gala adagta xataa meel waxa waaye macnaha ii sheeg oo tuugada waxa isku badan yihiin marka ummadda Soomaaliyeed waxaan idinka baryaynaa macnaha ii sheeg inaad la soo xiriirtiin gabadhan macnaha ii sheeg maamada ah oo dhiban oo macnaha caruurtaas haysta hooyada kelida ah wabillahi tawfiiq insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad caawin doontiin